amba way wada guuleysan doonaan amba way wada guuldareysan doonaan. qisadan idiga warrami doona waa qiso jacayl, sidoo kale kama maqna kala go'. waxay u muuqataa furniin kala tag micnaha, bal wayn ka warrami doonaa. bal waa ugu horreyn aan u yeedhno qofkii khusayso qisadani oo ah xasabo xasan xuseen. waan ku salaamay mudane. ahlan wasahlan xasan, soo dhow. maasanid mudane. magacaagu ma xasabo mise waa xuseen mise xasan baa lagu yidhaahdaa? xasabo xasan xuseen ba. xasabo xasan xuseen. ahey waan ku soo dhaweynayaa. maasanid mudane. adigu suudaan ayaad ka soo insha Allah. jeedaa? halkeebaad ka digantay suudaan? Dumaan. inta urmudumaan khartuuma caasimadda micnaha. waan ku soo dhaweynayaa mar labaad. warkaaga wax u wada miyaad leedahay dhaa? ha inan baa ii joogtaa, xaaskayguna uur bay leedahay. in baa ku joogta miyaa? ha gabadh baa ii joogtaa. oo maxaad ku tiri markaana gabadhaada hee? gabadhayda uur ayay leedahay leedahay. leedahay. laakiin adigu waad furtay soo maaha? ha laakiin 8 bilood baad kala maqantihiin. laakiin asbaabta waan ka warrami doonaa see u dhacday. hadhow ayaad ii salix doonta adigu. haddaba xasabo waa nin ay ka daba dhaceen gabdhuhu. xasabo waa nin xaas leh, wuxuu ku guursaday jacayl. xaaskiisa waxaa la yidhahda ruweyda, iyaduna waa suudaaniyad. ubad baana isku dhaleen. haddaba maalin oo xasab uu ku jiray musqusha, waxaa soo dhacay taleefankiisa. xaaskiisa ruweyda gurigii iyaduna joogta. mar buu soo dhacay cidna ma qaban, mar labaad buu soo dhacay cidna ma qaban. ugu dambeyntii gabadhiisa ayaa qabatay taleefankii. waxa uga soo baxdayba gabadh, waxayna ku lahayd xabiibi hoosta ayaan kugu sugayaa ee soo daadeg. way ku xidhay taleefanka lama hadal. saaxiibkaha musqushi ayuu ka soo baxay. waxay ku tiri waxay sheekadani waayo tani iyo heedna. waxaa la ogaaday marka inay cilaaqaad ka dhexeeyo isagii gabadhii. halkaas ayuu dagaalku ka bilaabmay iyo muranba, iyo gurigii ka tagtay. ubadkeedii ayay saas ku kaxaysatay. waxay lahayd inan, uurna way lahayd. inantana guurkeedii hore ayay ku dhashay. xasabo suurtagal baa inaad kaga tagto guriga telefoonka. waa fileen. waxaad gabadh masriyadan isbaranay. shaqa naga dhexaysay. waayo iyadu waa masriyad, waxay jecel yihiin heesaha suudaaniyiinta. waxay ku tiri waxaan doonayaa aroos inaad nooga soo heesto. waan gartay. markii aan wada hadalnay aan dhahay beritolan diiman doonaa insha Allah. kadib gurigaan imid kabacdi iyadu mari 2 jeer bay igu soo celisay. waan gartay. anna musqusha ayaan ku raagay. kabacdi waxaan idhi mobilka. waxay tiri maxaa dhacay mobilkaaga maanta? adigu si kasta hata taleefankii way qabatay. waan gartay. kadib waxay tiri walaal hoostan ku yar sugaya ma ii soo dhigi kartaa? anuu ku doonayaa. si toos markii uu la hadashay oo adiga kumudisay miyaa markaa? miyaanay horan waayo iyo qofkaasaan doonaya midnaba. si adigu ma ku tiri gabadha masriyadda xaas baan leeyahay? may kuma oran. waxaana ku tiri xabiib waan ku sugaya wasi u kaalay. iyaduna hadal lama suuli markiiba taleefanka saasoo ku tiri. kabacdi waan isqabsanay. qof kalaad jeceshahay saasay tiri. anna waxaa isku dayay inaan fahansiiyo. kadib way iga xanaaqday. waan isku dhacnay. 8 biloodna way iga maqneed. uur ayay lahayd markii guriga ka tagtay soo maha? uur ayay lahayd. waan gartay. maxaad hadda ku oranaysaa marka iyada? wallaahi waxaan ka oranaya iga raallahow, weli zaa'id iga raallahow. fiicnaan lahayda jacaylkii sidii hore aynoo ahaan jiray inuu soo noqdo. iyo markii shahrul casalka aan Itoobiya tagnay, fiicnaan lahayda inay soo xasuusto Itoobiya markaan tagnay. xiriirkii waana inaga dhexyaanay iyada. runtii aad baan raali gelinayaa. laakiin intaan ka badan inaad raali gelisood qancisa weeye. hadal intanoo keliya maaha, in ka badan baa la doonayaa. waayo way dhaawacan tahay. waxaanay kaaga shakiday inaad leedahay xidhiidh adigu gabadhan iyo gabadho kaleba. waa run way shakisantahay iyadu. waa xaq inay shakido, waayo anuu fanaan baan ahay. waanad ogtahay fanaaniintu inay xidhiidh la leeyihiin dumarka iyo dhalinyaradaba. adigu ma ganacsiin micnaha. يعني
فنان هيصايم هنا يعني هذيك واحد كان فاهم يا مكا يعني سمر كرو هذا الله وكفتن يعني إن أدوك واحد إلى هذا الله هنا بريئات كتير وحولبا أدي كبر من بريئان كانوا سكستها تبع أنو فرين تون ترني يدا سيبا هاس كجرويدا بل أمودارك إنه أقولاتي إنه تما دخلكن هالكاش عشان كودا يجنو أهلا وسهلا سودو waan dhawahay mudane waad mahadsan tahay iga waran xaalkaaga waan fiicanahay ustaad maxaa ku dhacay waxaad soo gashay adigoo yani sida qof aduu shakisan amba baqanayo kale maya ma baqanayo mudane waa caadi maasha allah ur ayaad leedahay insha allah nabad allah kaaga dhigo insha allah aamin ma doonaysaa inaad ogaato cidda kuu yeedhay run ahaantii aniga ayaa kuu yeedhay laakiin qof ayaa jira iga kaa dalbaday inaan adiga kuu yeedho ma jecesha inaad ogaato cidduu yahay fiicnaan leedahay shaashadda inaad eegto cidda ii yartay كورن سو isaga maaha waan gartay haa ka ku yeedhay isaga weeye waad garatay miyaa siro bedele xoogaa soo maaha 8 bilood waa khaa'in waana beelow khiyaanada weeye khiyaano weyn khiyaano aad u weyn weliba رويدا ها كان وما بزوداني فرين أيوكا زوديبي fiicnaan فلانا lahayd كو أخرنايا وحكولي حبيبة ديدي قالك هيدي رويداي waxaan ku dhaaranayaa alle weligii anigu ma jeclaan gabadh aan adiga ahayn miyaanad dhahin beenaale haa isagu waa beelow saasaad u fikirtay miyaa oo aad u fikirtay sidaas oo maha isagu waa beelow maya laakiin markii hore waan kuu muusan dhaaranayaa ahayn beelow inaanan jeclaan gabadh aan adiga ahayn waa run anigu waan khaldamay waanan ku dhaawacay laakiin qalbigaygu mar kastaba adiga ayuu kula joogay adiga keligaa kama meermeerayo wixii aan sameeyey ugu dambayntii waa khalad maqnaashahaad iga maqan tahay waxaan ogaaday qiimaha iyo qaayahaad agtayda ku leedahay igana dhigay inaan ogaado inaan anigu khaldamay weliba adiga xaqaagu khaldamay nin walba uu hami badan yahay laakiin hamigoogaasi wuxuu ku soo koobmayaa qof kaliya ay jecel yihiin iskumaanan dayin inaan iska difaaco waxii aan sameeyey waayo anigu waan qirsanahay khaladkan kaa galay adiga diyaarna waxaan ahay wax kasta inaan sameeyo aad ku dalbato xasuuso maalmaheenii wacnaa oo xasuuso badan ay ku lamaanaayeen waxaan kugu adkeynayaa inaan anigu adiga ku jeclahay waqtigu waa horteena waxaanan diyaar u ahay inaan kuu soo wada celiyo wax alaali wixii aan kaa humeeyo dhan taasoon sabab yeesha anigu mid dambena eegi maayo anigu bes waan ku barayaa dadka hortooda inaad isaamaxdo والمسامح كريم معناه وغير رجال وكوزو سميه يسوو حسبو ها وقرنيا isagu sababta igu kaliftay inaan arrintan sameeyo ana ku sheegi doona wax aan isagu weydiiyey waa in kare isagu waxay sheegay inaan wax xiriir aan ka dhaxayn isaga gabadhaas gabadha dadku telefoonka ka qabatay mina shaqa ka wada dhaxaysay waayo aroos ay lahaayeen isagana la doonayay inuu ka heeso sababtoo isugu fanaan adiguna waxa weeye inaad ogaato
ظروفته فنانينته يعني فنانka markaste isagoo shaqo ku jira xataa dumar ayuu la hadlayaa yani dad kale la hadlayaa hadaba xasab uu kusoo dhow oo la hadal marwadaada waxaan idin sheegtay 8 bilood inaad saarag labadiinu kusoo dhow oo la hadlayada hadaba codkaagana kor u qaad السلام عليكم مرور وعليكم السلام ايه غور مركاغا الحمد لله انا الحمد لله روحانتي يقرا له ادي اد ان كاغا رالي غلنيا ولجيدكيga ma inaad igu qiyaamayo jacaylkeeni ma ogtahay ismaaleen wadadaas u mari doonaa runtii 8 biloodna kumaan la raganugu wallahi runtii waan ku dhaaranayaa waxa la leeyahay waxa jeceshay ayaan kuugu dhaaranayaa runtii saamax igana raalahow aad iga raalahow laga yaabay inay saamaxdo markan anigu wallahi waxaan ku leeyahay iga raalahow dhab iga raalahow weliba waxaan ku rajo weynaa maanta dadka hortooda inaad ku saamaxayso labadiinu ba xaq isku leh waad ogtahay jacaylka koowaad meel kale ma aado waxaan ku rajo weynaa inaad igu saamaxdo dadka hortooda hadda adigu waad hadli kartaa wax alla waxaad doonto dhihi kartaa adigu xorriyad ayaad leedahay ku dhow waxa la leeyahay doonayso wixii aad awood u weydistid bilood korinaad ku tiraado hadda ku dheer waxaan rabaa inaan ogaado sababta kugu kaliftay waxaan doonayaa inaan ogaado sidan wuxuu sameeyay ها مالنا anigu adiga ku naabahay haduu ogtahay duruufta fanaaniinta wad dareemi kartaa adigu xabiibi fiinaan leeyahay haduu duruuftayda dareemaya waqtigan telefoonadka si kasta la soo wixi karo wad ogeed waan dareemi kartaa fanaankana bal iiriso adigu ana bal wax weydiin doona ruwayde adigu maxaad sidaa u sameysay maxaad uga tagtay guriga aniga xaq ayaan u leeyahay inaan ka tago guriga waayana ha sababtoo ah uu khiyaamay sidoo ku ogaateen adiga ku khiyaamay telefoon ayuu igu khiyaamay telefoon gabadh baa la hadasho ku tiri soo deg hoos baan kugu sugayaa masaasa khiyaamadu markaa waxaan ku ogaaday telefoonka ayaan ku ogaaday awlaadada abood nigaa ku qabay baad wixii diga dhaxay ku burburinaysaa telefoonka isaga bana dayacay maya laakiin isagu wuxuu yiri wax xidhiidh naga dhaxayaan aniga caruurtiisa laga yaabin wiilaaw aduu markii uu xukuumad ku ridaysaa ha waxa ma barbaarin مثلا adigu miyaad ku aragtay waxyaalo la mid ah yani soo ku hadlay telefoon qof la hadlaya ama shaqaasi oo kale leeyahay naago in kale ma barbaarin hada ma dhacay laakiin wax walba waxa igu filan in telefoonkiisa aan qabtay adiga maskaxdaada ma fadhida mina aan ka ogaaday wax walba telefoon kaliya waxa uga sheekeynaya cunugayga soo socda maya duu doonay inuu arko laakiin dee sodii aad u qalbiga tagay rabo inaan saamaxo muxuu gurigeena u imaan waay gurigiisa markaa ka tagay taawun sameeya gurigeena muxuu u imaan waay maxaad ugu tagi weyday sura la gelin weyday adigu oo uga dalban weyday inuu cafiso waan tagay laakiin iyada ayaan rabin inay la kulantaan aniga oo isku dayay adiga ayaan ogoleen inaad qaabisho oo adiga dhankaaga markaa adiga arrinka sii weynay sheekadina heerka gaarsiiyay ما ندون نتقابل شيء أنا حناقصناهي سيداس أنا أقابل واي إلا ما أنت ميدو على سنتا مركا إلا هدر وان حناقصناهي إلا ما أنت وضع على سنتا هذا واي من مسكين كاني وحاني مد سوى وحنا هذا اللهين وحانو الدوني إنو كويديستو إنا تعفيسو صفحانو إكساقا تدبلوت كدب ميو قرت إنو أنيقا مرو رويداي أديقا وجهك ما شاء الله فرحت waa ka muuqataa waanan ogahay inaad xagga gudaha ka dhaawacantay aad baan u xanaaqsanahay aad weliba waan kaaga mahadcelinayaa meesha aad timid wanaag aad ku timid stuudiyahan adigoo hor fadhiya dadkaasoo dhan oo aan garanayn arrinku muxuu yahay iyo maxay mawduucan muxuu yahay minaa waad ku mahadsantahay taa laakiin ninkani wuxuu caddeynayaa inaanu dembi lahayn run sheegayo waanu ku raali gelinayaa waxaanu doonayaa guriga inaad ku soo noqoto adigu diyaar moo tahay marka hore inaad saamaxdo horta ugu horreyn horta isagu wax dambiya muu gelin khiyaano kugumu sameyn adiga ayaa ku fakiray in lagu khiyaameeyey laakiin soo khiyaano kugumu sameyn hadal runa ayuu ku hadlay anoo rumaysna waayo waa runloo maxaan ku dhahaa wuxuu jeclaystay inaad isku soo noqotaan oo reerkiin iyo qoyskiin iska dhisataan barnaamijkan kadib waanad ku mahadsantihiin taa
أنا أقوم هاد علني جيسني ماذا أدوكنا خاصة وأضل ربط أيمك إن شاء الله إلهي نوضك وكلا كانوا maxay kula tahay markaa anigu waxaan isdhahayay muddo yar kadib wuu imaan doonaa wuxuu ku weydiisan doonaa cafis laakiin 8 bilood kadib ayuu socdaa isagoo cafis dalbanaya way dhacdaa inuu waqtigu soo raago way uu ka khayr badan yahay ku imanba ka waran haddii isagoo gabar la jooga oo sidaa uu ku tago aanu kugu soo noqon miyaan ka fiicnaan 8 bilood ka hor inuu yimaado isagu 8 bilood yaanu duruufaa jirtay wuuna shaqaynayay maskiinku 8 bilood kadib inuu yimaado miyaysan badnayn muhiima hadda way marway adigu bal ka fakir bal arrinkan si fiican uga fakir waana aragtay wixii ku qornaa warqadii uu ku soo qoray uu ku xasuusinayo xasuusihii hore aad soo damarteen iyo jaceylkii idiga dhexeeyay idinka haddii yacni dee wax yar naxariis ay jirto jacayl ah oo weliba qalbigaaga kusii hadhayna inaad saamaxdo bal ood ku soo noqotaan gurigiina ku soo noqotaan ubadkiina aad aragtaan haddii kale mid walba gurigiisu ku noqonaya maxay kula tahayna maxaan ku dhihi karaa cunugiisa imaanaya waa inaan wax caloosha ku shidaa insha allah maxaan ku dhahaa aabbaha khayn ayuu ahaa maya kuma oranaysa aabbaha khayn buu ahaa waayo adigu dee waxba maad arag haa waan arkay adigu waad u malaysay waxaad aragtay inuu telefoon gabadh baa la soo hadashay waxay ku tiri soo degun haa waa ka mamnuuc inuu gabadh la hadlo markaa hadda isku raacataa inaan la hadal isaga gabdho u sheeg haddaad doonaysa inaad ku noqoto sharti uga dhig isaga mamnuuc ayuu ka yahay inuu la hadlo naago waad la hadli kartaa ku dheh kor u eego haa lama hadli kartid qof dumar adiga samcan wadaan ballan baan kugu qaadayaa maanta laga bilaabay insha allah lama hadlayo naag dambe bes adigunbaan kula noolaanaya macaan haddaa la hadashay qof ajnabi ah waxaan u qaadanayaa haddadii ogolaataa ugu weye laakiin oka ballan buu kuu qaaday naag dambe lama hadlayo xitaa haddii shaqo u wado ambay xaflada uu tegi lahaaba ma rabo inuu tago way fiican tahay suma shardigaasi maxaad kala doonaysaana fargal dheeman ah maya ma dalbanayo khaatim fargal almaas ah ma dalbanayo ayway bal ma sheeg masaamaxaysa isaga haya maya waa inaan fakeraa in yar baad ka fakiraysaa ayway bal ka fakir si fiican weliba uga fakir waru sheekaynta fakirayso haddii kala isbedeli karta iska jir iyadu way jeclaatay inay iyaan ku saamaxdo laakiin waxaa laga yaabaa hadday fakirto inay isbedesho u sheekaysaan gacantaad uga baxsan marwarweyda waxaan ku oran lahaa waxaa tahay qofka keliyan ku riyoodo adiga oo muddooyin badan aan ku riyoonayay ballan baan kugu qaadaya caawa wax kastoo dalbato dunida inaan cagaaga hoos keeni doono midda labaadna ballan waxaan kugu qaadayaa ubadkeena dadka horteeda ayaan ku qiranayaa mar dambe uu noqon maayo fanka dhanba waan iska daynayaa maxaa tirinaa fanka dhanba waan iska daynaya hadday tirahdee daa waan ku baryay saamax laakiin hadda hees gidaarkeed iga qaadi maayo adoo hadduu heese mooye codkiisu maxaan yahay soo maaha si fiican ayuu heesi karaa soo maaha wallaahi maasha allah codkaaga uu ka heshay haye soo daa markuu heesayo aad buu qurxan yahay aad weliba codkaaga ayaad ka maxruumtay miya xasabow weliba 8 bilood waxaan ku leeyahay sadrigaad ku taala qaalidii haweenkaay so wixii alla keenaba adiga ayaan kugu fakiraa so fiican u maqli maayo miyaad heesisaana balisug هي معنا بالحميسان دايبة بالسود ده هي بلحني عشان ايه لحنك اطربها هي من قبل الجمهور ايه يلا اطربها هي
السواق النايها نص الليل حنين والدنيا ممزوج في بكاها زي طيورا في الفروم مهتارة بتفتش جناها البيوت والناس والله انت بدون awoodo ay maxaa ku dhacay markaa kama adkaysan karo wallahi inaan soo arkan dunyada inta bal way istaji horta fadhiiso bal ima qalaniga xasabo wali kulama heshiin hadda waa fanaan sama hay wala heshiisay hadda soo caadi ma xaaladu والمسامح كريم وكو سامحدي والمسامح كريم أسامحه المسامح كريم يلا تعال وفيله هنا لازم يجي يسلم عليك تفضل